xuseen aadan cige xuseen dayr afhayeenkii madaxweynihii hore ee somalilan oo la hadlay telefishinka Eryal ayaa ka hadlay buugga maalimihii u dambeeyey buuq iyo jahawareer ka dhex abuuray bulshada somalilan ee uu qoray hogaamiye xirsi cali xaaji xasan. afhayeenku waxa uu si gaara isku dultaagay qaybaha buuggaasi ee ka hadlaya madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud silaayo. qoraaga buuggan oo ah hogaamiye xirsi cali xaaji xasan wixii uu isagu ku qoray horta isaga lagala xisaabtamaya. anu dabcan madaxweynaha waxa weeye caafimaadkiisa iyo noloshiisa iyo dabnimadiisa iyo dabeecadiisuba waan la soo shaqeeyay. dalkana isaga maamulay cid aan ahayn isaga oo maamulaysa may jirin. cidda wax magacaawda, cidda magaranaysa wax soo saarta, cidda go'aamada gaadha, cidda ugu dambaysay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo igmatay wuxuu Axmed Silaayo sida Muuse Biixi hadda loogu igmaday. xanuunkaasi haba yaraatay wax alla wuxuu iiga muuqday oo madaxweynaha aan ka ogaa ama aan oran karo uu xanuunsanay ama xasuustiisba hoos u dhacday haba yaraatay ma jirto. madaxweynihii hore ee somalilan axmed silaayo oo uu sheegay in markii muddo bile uu joogay dabcan xusuustiisii ay sii yaraanaysay sida uu isagu u dhigay weliba si xooga oo xaaladda caafimaad dabcan dad badan u tafsiirsheen. adigoo horta afhayeen ayaa ku magacaabay. su-aasha haddaan toos uga jawaabo aniga waxay magacaabay oo si sharciga igu magacaabay madaxweynihii hore jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaayo. afhayeen hore xuseen dayr oo aan weydiiyey su'aal odhanaysa inuu isagu qayb ka ahaa buuggaasi iyo qoraalkiisa waxa uu iigu jawaabay isagoo qabyo qoraal ah ayaan buuggan la qoray. dabadeedna buuggan waxaanu bilownay 2 bishii tobnaad sanadkii 2014. wakhtigaasi xirsi cali xaaji xasan wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada, anuu xukuumadda wax xilaal kama aan haynin. 2 Oktoobar 2014 buuggan ayaanu bilownay maalintii ugu horreysay inaanu qoraalkiisa aanu u tafaxaydano. wuxuu soo socdaba wuxuu nala soo gaadhay ilaa sanadkii dambe bishii 9aad 18keedii 2015 ayaa buuggan qabyo qoraalkiisa isagoo markaa qabyo ah oo xirsi cali xaaji xasan aan ku wareejiyey si uu dabadeeto u habeeyo. isla sanadka 26 Oktoobar 2015 wasiir xirsi cali xaaji xasan iyo wasiiro kale ayaa xukuumadda ka tegey oo iscasilay. maalin ka bacdi 27 bishii tobnaad aniga waxaa la magacaabay afhayeenka madaxweynaha. saas daraaddeed buuggani qaabkan uu hadda yahay anigu waxba kamaan ogeyn, laakiinse buuggan xirsi la qoray qaybo badan oo ka mid ah way ku jiraan, laakiinse nuxurka ku duugan iyo soo saaristiisa iyo qaabkan iminka uu yahay magac bixinta iminka la yidhaha miyiga ilaa madaxtooyada waxa weeyaan mid uu qoraagu magaranaysa iska leeyahay. buuggii horena aanu magaranaysa la qoray buugga macnihiisu waxaa la odhan jiray guushaydii. markaa wuxuu hordhac u ahaa silsilad 3 buuga oo xirsi cali xaaji xasan ku tala jiray inuu qoro. intaa hore markaa ururinta taariikh nololeedkiisa ilaa uu madaxtooyada soo gaadhay maalintuu dhashay ilaa uu madaxtooyada soo gaadhayay buuggan waan la qoray, laakiinse nuxurkiisu waxa weeye waxna waa laga bedelay waxna wuu ku daray. dabcan taana isaga ayaa u madax bannaan. marka intaasan ka ogay buug. xuseen aadan cige xuseen dayr oo sida oo kalena qoraalada aqoon dheeraada u leh ayaa sheegay sida oo kale in cid kasta oo dhibsatay qoraalada qaar ku qoran buugga uu qoray hogaamiye xirsi ay ku dacweyn karto ciddii dhibsata ama ha noqdaan qoyska madaxtooyada ama cid kale oo Somaliland ama cid kale oo dan gaara ama dan dadbab kalihi haddii ay dhibsadaan ama ay u arkaan in uu gaf ku sameeyay ama ereye gafi ku qoran yahay ciddii u baahata of course dacwad furan karta. waa la furan karaa dacwad, waana lagu dacweyn karaa, waxaana loo odhan karaa sir qaran oo madaxweynaha u gaara lana xidhiidha caafimaadkiisii ayaa halkan ku qoran. xirsi cali xaaji xasanow sharciga kuu bannaynaya inaad caafimaadkii madaxweynaha ka sheekayso adigoo wasiirkii madaxtooyada ahaa waxa weeyaan dadkii ciddii u baahata way dacweyn kartaa. Batri Koosar Maxamuud
telefishinka Ariel Hargeysa.